madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya waxaana la bedelay Donald Yamamoto oo Soomaaliya ka howlgelayay tan iyo bishii July 2018 markaas madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu soo magacaabay. Safiirka cusub waxa uu Mareykanka u qaabilsanaa dalka Djibouti. Larry Edward Andre ayaa Djibouti loo diray horaantii sanadkii 2017. Larry Edward Andre waa sarkaal sare oo muddo ku soo dhex jiray adeegga arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. dalalka hore loogu diray waxaa ka mid ah Djibouti oo hadda laga soo bedelay iyo Jamhuuriyadda Islaamiga Mauritania sanadkii 2014 ilaa 2017. sidoo kale waxa uu ahaa wakiilka gaarka Suudaan iyo South Sudan u qaabilsanaa Mareykanka wuxuuna ku xigan ka noqday xafiiska Mareykanka ee Afrika. Andre wuxuu fursad u helay saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyay oo uu noqdo wakiil ugana howlgalo dalalka Afrika ku yaala. Larry Edward Andre waxa uu dhashay sanadkii 1961 shahaadada koobaad ee jaamacadda wuxuu qaatay 1983 waxaana ka qaatay maxadka Claremont ee California. sanadkii 1988 ayuu qaatay shahaadada labaad ee jaamacadda oo culuumta siyaasadda uu ka bartay maxadka maamulka iyo maareynta caalamiga Arizona. markii uu horeysay Afrika u yimid waxay ahayd sanadkii 1983 wuxuuna si bilaash uga shaqeynayay hay'ad wuxuu qaaradda ku sugnaa markaa ilaa 1985 kadib markii jaamacaddu ka soo qalin jabiyay wuxuu Andre ku soo noqday Afrika wuxuuna ka shaqeynayay mashruuca dib u dejinta qaxoontiga intii u dhaxaysay 1988 ilaa 1990. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu ku biiray 1990 wuxuuna ka howlgelayay waddanka Nigeria 1990 ilaa 1992. Cameroon 1990 ilaa 1994 iyo Asia oo ka soo shaqeeyay Bangladesh 1994 ilaa 1998. kadib markii la dilaaciyay waxa uu madaxa maamulka ka noqday safaaradda Mareykanka ee dalka Guinea laga soo bilaabo 1998 ilaa 2000. kadib waxa uu noqday sarkaalka dhanka bay'adda iyo deegaanka ee bariga Afrika wuxuuna fadhigiisu ahaa magaalada Addis Ababa. wuxuu xilligaasi qaabilsanaa ilaa 14 dal oo bariga bartamaha ku yaala qaaradda tan Afrika waxaana shaqada hayay 2000 ilaa 2002. wuxuu sidoo kale noqday ku-xigeenka madaxa howlgallada safaaradda Mareykanka ee Sierra Leone 2002 ilaa 2004. sanadkii 2004 ilaa 2006 wuxuu Larry Edward Andre uu ku noqday magaalada Washington wuxuuna ahaa ku-xigeenka agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsanaa galbeedka qaaradda Afrika wuxuuna muddo kooban ka soo shaqeeyay dalka Iraq sanadkii 2005. markuu Afrika ku soo noqday waxa laga dhigay qunsulkii safaaradda Mareykanka ee Nairobi 2006 ilaa 2008. kadib ayaa loo diray safaaradda Tanzania oo ka ahaa ku-xigeenka madaxa howlgallada 2008 ilaa 2010. haddana mar kale ayaa dib loogu celiyay Washington. Larry Edward Andre waa la dilaaciyay waxaana laga dhigay ku-xigeenkii madaxa arrimaha Afrika u qaabilsanaa Mareykanka 2010 ilaa 2011. waxa uu ka dib noqday kusimihii iyo agaasimihii xafiiska wakiilka gaarka Mareykanka u qaabilsanaa Suudaan iyo South Sudan 2011 ilaa 2013.